bilowga filimka waxaana la barayaa qareen caan ah oo lagu magacaabo Lauren Monroe iyadu waxaa loo yaboohay $1,000,000 si ay u difaacdo kiiska nin dambiile ahaa si kastaba ahaatee Lauren maadaama ay daacad ahayd si xushmad leh ayay isaga diiday iyadoona sheegtay in damiirkeedu aanay u ogolaanaynin inay sidaas samayso Lauren waxaa loo arkaa inay tahay qareen aad u daneeya cadaaladda beddelkii lacagta kadib waxaana la barayaa Lauren walaalkeeda ka yar oo lagu magacaabo William Monroe kaasoo ah siyaasi rajeynaya inuu noqdo duqa magaalada New York dhan kale waxaana la tusayaa Lauren aabaheeda RK Monroe kaasoo ah ganacsade taajir ah oo hadda wajahaya dhibaato xagga neefsashada ah waxa si uun ugu suurtashay inuu gaarigiisa karo laakiin intuu gurigiisa u sii socday ayuu naf baxay Lauren oo shir jaraa'id ku jirta ayaa loo sheegay warkan naxdinta leh muuqaalka qaybtiisa xigta Lauren William hooyadooda Catherine Lauren ninkeeda Scott iyo gabadhooda Claire ayaa la arkayaa iyagoo ku sugan xabaalaha aas kadib labadan walaalo waxay ka wada hadlayeen sida ay hooyadooda u dejin lahaayeen meel u dhow kadib Lauren waxay tagtay xafiiska aabaheeda oo waxay soo xasustay sidii uu aabaheeda u bari jiray ciyaarta jeeska usbuuc kadib qareenka qoyska Monroe oo ah Harold ayaa ku dhawaaqay dardaarankii ugu dambeeyay ee Archer iyadoo dardaaranka la tixgelinayo William waxaa la siiyey $20,000,000 halka Laurenna la siiyey $1,000,000 oo keliya $50,000,000 ee soo hartayna waxaa lagu wadaa in loogu deeqo hay'adaha samafalka iyo isbitaalada kadib markii uu tani ku dhawaaqay Harold ayaa Lauren si gaar ah ugu dhiibay baakad uu aabaheeda u dhaafay markii ay furtay waxay ka dhaxayshay falaash iyo fure falaashkii ay laabtoobkeeda gelisay waxayna aragtay muuqaal uu aabaheeda ugu sheegayay inay jirto arrin uusan qofna u sheegin intii uu noolaa wuxuu kaliya ugu soo koobay inay furaha qaadato oo ay aado meel keenta ka mid ah kadib markii ay muuqaalka daawatay Lauren oo yaaban ayaa aaday keentii halkaasoo ay ku aragtay albaab uu quful saarnaa waxay qufulka ku furtay furihii waxayna aragtay jaranjaro dabaq hoose tegaysa intaas kadib Lauren gudaha ayay gashay iyadoo meeshu ay gudcur tahay albaabka ayay furtay waxayna si geesnimo leh u eegtay ninkii balse si lama filaan ah ay u dhaqaaqay taasoo keentay in iyadoo argagaxsan ay soo cararto Lauren waxay ku laabatay guriga waxayna go'aansatay inay wacdo booliiska si ay u caawiyaan balse walaalkeed ayaa soo dhex galay kaasoo muujinaya inuu ka xun yahay lacagta yar ee ku soo aaday sidaas darteed wuxuu rabaa inuu qaybtiisa wax ka siiyo si kastaba ahaatee Lauren ayaa diiday oo sheegtay inaysan lacag muhiimad u lahayn xilli dambe habeenkaas Scott ayaa xaaskiisa xaaladdeeda ka wareysanayay waxay sheegtay inay fiican tahay balse waxay ninkeeda ka codsatay inay u baahan tahay inay waqti kaligeed ah qaadato oo waxay dirtay isaga iyo Claire dabadeed waxay egtay sawirkii carruurnimadeeda kaas oo ay la gashay aabaheeda waxay tani soo xasuusay mar uu muran dhex maray waxay u muuqatay in Archer uu inantiisa ka codsanaya inay qareen u noqoto saaxiibkiisa laakiin iyadu waa ay diiday sababtoo ah ma difaacdo dambiilaasha subaxda xigtay Lauren iyadoo biskoolada wadata ay dib ugu laabatay godkii markan waxay daratay inuu ninku hurdayo waxay si degdeg ah faro ugu qaaday isaga si ay u ogaato cidda u yahay ninkan ayaa markaas indhaha kala qaaday taasoo iyada ku kaliftay inay cararto muddo kadib waa ay u soo laabatay iyadoo maaskara xiran oo waxay ninkii weydiinaysay qofka uu yahay waxaa muuqata in ninkan uu garanayo tafaasiil badan oo ayada ku saabsan sida magaceeda magac walaalkeeda iyo arrimaha qoyskooda markaas ayay maaskaradii iska saartay ninkan wuxuu ku andacoonayay inuu hadda wehel helay kadib markii muddo dheer halkan lagu haystay wuxuu iyada ka codsaday inay sii dayso laakiin Lauren ayaa ka diiday oo waxay marka hore ka dalbatay inuu sheego sababta halkan loogu xiray ninkan ayaa ogolaaday balse wuxuu marka hore dalbaday in loo keeno cunno iyo cabitaan heer sareeya si ay u fahanto waxa jira Lauren waxay u baxday inay fuliso dalabka ninkan markay guriga timid waxay fariin u dirtay saaxiibkeedii dambi baara ahaa oo loo magacaabo Emilio iyadoona ka codsatay inuu u keeno macluumaad la xiriira qofka farahan leh intaas kadib waxay soo iibisay wax kasta oo ninkii dalbaday oo godkii ayay ku soo laabatay sanado badan kadib ninkan ayaa ugu dambeyntii helay cunto macaan badan wuxuuna bilaabay inuu farxad la ilmeeyo waxay sidoo kale siisay shukulaato taasoo ninkan xasuus gelisay wuxuu Lauren ku wargeliyey in aabaheeda uu sanadkiiba hal mar shukulaato u keen jiray wuxuuna siin jiray hal jab oo inta soo hartayna inuu meel sare saaro ayuu gumaysan jiray kadib markii uu cuntada u dhammaystay ayuu sheegay in la yidhaahdo Morgan Warner wuxuu markaas bilaabay inuu soo bandhigo qisadiisii hore sida afkiisa laga soo xigtay wuxuu Archer la kulmay 30 sano ka hor waxayna si dhaqso ah u noqdeen saaxiibo sababtoo ah waxay wadaageen 3 dabeecadood oo kala ah qamaar kibir iyo dumar jeceli waxay noqdeen shuraaka ganacsi habeenada ka mid ah iyagoo cabsan ay baabuurka haysteen intay sii socdeen Archer ayaa jiray qof shacab ah kaasoo isla markiiba meesha ku dhintay Morgan wuxuu rabay inuu booliiska waco laakiin Archer ayaa ku adkaystay inay meydka qariyaan sidaas darteed Archer meydkii ayuu aasay maadaama Morgan uu tani ka soo horjeeday Archer ayaa ninkan madax bir uga dhuftay oo godkan ku xabisay Archer wuxuu u muuqday mid ka baqaya in Morgan uu booliis ku dacweeyo intaas waxaa dheer oo Morgan shaaca ka qaaday in Archer uu xiriir la lahaa haweeney lagu magacaabo Sophia taasoo xitaa uu ka jeclaa xaaskiisa Catherine Lauren ma aysan rumaysan sidaas darteed Morgan wuxuu inantan la wadaagay ciwaanka guriga Sophia wuxuuna ka dalbaday inay arrintan soo hubiso waxa kale oo ka codsaday inay Harold arrintan wax ka weydiiso sababtoo ah isagu wax badan ayuu og yahay Lauren iyadoo tani aamini kari la ayay wacday Emilio waxayna ka codsatay inuu baaro xogta nin la yiraahdo Morgan Warner
intaas kadib waxay u baxday inay Sofia la kulanto. Lauren waxay naagtan weydiisay halka ay aabaheeda kula kulantay, oo Sofia ayaa ku jawaabtay meel turub lagu dheelayay. intii ay wada hadlayeen ayay aragtay sawirka wiil yar, oo arrintan ayay wax ka weydiisay. Lauren oo aad u yaaban ayaa Sofia ay shaaca ka qaaday inuu yahay Alex, oo ah cunugeeda, iyo sidoo kale Lauren walaalkeeda. markay tani maqashay Lauren oo xaqiiqdan xamili kari la ayaa banaanka u soo baxday iyadoo oynaysa. dabadeed wuxuu tigtay Harold oo ay ku xanaaqday maadaama uu qoyska ka qarinayay sirtan. wuxuu qarinkan ku jawaabay inay mas'uuliyadiisu tahay inuu ilaaliyo sirta qoyska. Lauren ayaa markaas weydiisay inuu wax kale qarinayo, taasoo isaga uu ku jawaabay inaysan jirin wax kale oo iyada dhibaato ku ah. wuxuu u caddeeyay in arrintan iyo macluumaad kale ee haray uu qarinayo, oona ay iyadana ismurjin. kadib Lauren waxay booqatay hooyadeeda, taasoo isu diyaarinaysay ololaha doorashadii William. waxay weydiisay inay maqashay nin la yidhaahdo Morgan Warner, laakiin wax jawaab ahi waa ay weysay. wax yar kadib William oo niyad jabsan ayaa yimid. markii la weydiiyey wax jira ayuu sheegay in codbixinta laga kormari rabo, sidaas darteed wuxuu Lauren ka rabaa inay dadka la hadasho, sababtoo ah iyadu aad ay u xushmeeyaan. isla habeenkaas Lauren wuxuu ku laabatay godkiisii oo ogaato macluumaad dheeri ah. waxay Morgan weydiisay meesha uu aabaheeda ku aasay qofkii shacabka ahaa ee uu jiray. markuu tani maqlay Morgan ayaa gabadha heshiis kula galay inay sii dayso kadib marka uu halkaas geeyo. Lauren si cagajiid leh ayaa arrintan u aqbashay, oo ugu dambeyntiina bannaanka ay u soo saartay. ninkan aad ay u qiirooday maadaama uusan sanooyin badan godkan ka soo bixin. kadib Lauren waxaa soo wacay ninkeeda Scott, kaasoo weydiinayay halka ay ka baxday. waxay u sheegtay inuu dulqaato oo ayna u maan doonto. intaas kadib waxay gaarigeeda u kaxisay meeshii uu Morgan tilmaamayay. markii ay goobtii gaareen wuxuu ninkani tilmaamay halka uu meed ku aasan yahay. Morgan intuu iska fadhiistay ayuu sigaar cabayay, halka iyaduna ay meeshii qodaysay. Lauren ayaa aad u cabsatay markii ay aragtay lafaha madax bini'aadam. tanna waxay u caddaysay in Morgan uu run u sheegayo, iyadoo aan wax kale ka fikirin ay godkii dib u aastay, oo Morgan ay godkii ku soo celisay. waxay mar kale ku xirtay meeshiisa, laakiin ninkan ayaa inanta ka baryay inaysan qiyaamin, oo ayna noqon qof naxariis daran sidii aabaheeda oo kale. Morgan wuxuu gabadhan ka baryayay inay sii dayso, sababtoo ah wuxuu rabaa inuu qoyskiisa dib ula midoobo. waxa kale oo uu ballan qaaday inuu agtooda ka fogaan doono, oona wax dhibaato ah u geysanaynin. nasiib daro xitaa calaacalkan kadib Lauren waa ay ka cudur daaratay oo ayna iskaga soo tagtay iyadoo ka xun. maanta xigtay waxay booqatay xafiiska walaalkeeda, oo tale ayay weydiinaysay iyadoo iskaga dhigaysa inay ku xallin rabto kiis maxkamadeed oo ay gacanta ku hayso. waxa ay weydiisay waxa uu ku samayn lahaa haddii uu ogaado qof sirtiisa haya oona halis ku ah isaga. William wuxuu ku jawaabay inuu qofkaas dili lahaa ama uu laaluus siin lahaa si uu magaalada uga tago. fikir dheer kadib Lauren waxay iyadoo boorso wadata ay aaday godkii, oo Morganna wuxuu ballan qaaday inuusan dib dambe u soo laaban doonin. waxa uu sheegay inuu cadaabtan ku jiray iyadoo aan dhalan, oo mar haddii ay sii daysan uusan gadaal dambe soo eegi doonin. Lauren waa ay ka aqbashay, waxayna ka codsatay inuu isnadiifiyo, oo waxay u ballan qaaday inay cawada sii daynayso. intaas kadib waxay u tagtay Harold, oo waxay ka codsatay inuu diyaariyo $1 milyan iyo diyaarad qaas ah si uu ugu duulo qof uu aabaheedu dhib u geystay. Harold ayaa weydiiyey sababta, laakiin waa ay diiday inay u sheegto. muuqaal qaybtiisa xigta, Morgan wuxuu ku dhow yahay in la sii daayo, laakiin Lauren ayaa weydiisay inuu aabaheeda u sheegay wax iyada ku saabsan. wuxuu ku jawaabay in Archer uu iyadu aad u jeclaa oo uuna ku faani jiray. halkaa markay marayso, Morgan wuxuu kaloo daha ka qaaday sir kale oo ku saabsaneed William, taasoo ahayd laaluus u dhiibay markii uu siyaasad ku soo biirayay. Lauren waa ay naxday, oo waxay isla markiiba hortagtay William, laakiin wuxuu isagu aaminsan yahay in laaluushka uu qasab yahay si loo helo jago sare. wuxuu sidoo kale ku andacooday in aabahooda uu dadka laaluushay si ayada loogu doorto qareenka degmada. intay tani u adkaysan weyday ayaa dharbaaxday, oo ayna ka soo tagtay iyadoo uga digaysa inuusan mar dambe been u sheegin. ugu dambeyntii Morgan wuxuu ka baxay godkii, isagoona xusuus ahaan u qaatay Jess. markii uu dibadda u baxay ayuu dareemay naacaawdii xornimada. Lauren waxay ninkan u waday diyaaraddii qaaska ahayd, halkaas oo Harold ku wareejiyey eedhikaar iyo lacago akoonkiisa loogu shubay. Harold iyo Morgan ayaa markaas fuulay diyaaraddii, halka Laurenna ay dib ugu laabatay godkii si ay u nadiifiso. markaas waxay aragtay sun ku jirtay sariirta hoosteeda, laakiin waxba ma aysan u arag, oo waxay aamintay in wax walba ay isku dhammaadeen. dhan kale, Emily wuxuu helay feel ku saabsanaa Morgan, oo wuxuu geeyey guriga Lauren. muuqaal qaybtiisa xigta, Catherine waxay tagtay guriga oo ay furtay baakadii Lauren loo keenay. kadib Lauren ayaa soo gashay oo weydiisay cidda baakada furtay. halkii ay jawaab bixin lahayd, hooyadu ayaa si cabsi leh inanteeda u weydiisay sababta ay u haysto sawirka Carson. Lauren wuxuu ku andacoonaysay in ninkan magaciisu uu yahay Morgan, oo uuna aabaheedu god ku hayay muddo sannado ah. markay tani maqshay, Catherine ayaa daha ka qaaday in ninkan uu yahay dilaa arxan daran, oo waxay weydiisay halka uu joogo, laakiin Lauren ayaa qaratay inay u ogolaatay inuu iska baxo. dabadeed waxay u degdegtay dhankii eelaboorka, waxayna keliya aragtay Harold iyo duuliyihii oo meyd ah. waxay si dhaqso leh u dareentay in Morgan uu hooyadeeda u soo socdo, sidaas darteed wuxuu ku laabatay guriga, laakiin Catherine waa la waayey. dhowr daqiiqo kadib waxay dareentay in albaabkii godka uu furan yahay. markaas ayay gudaha gashay, oo waxay aragtay hooyadeed oo miir daboolan. intii hooyadeeda eegaysay ayaa Morgan uu gadaal ka soo muuqday, oo naleerarkii ayuu damiyey.
dabadeed intuu gabadhii weeraray ayuu xirxiray kadib markii ay soo kacday wuxuu ninkan qartay in arkeed uu ku diray sun taasoo ugu dambeyntii uu ku dhintay. waxaa kale oo uu daha ka qaaday qisada dhabta ah ee ku saabsan taariikhihii hore. Morgan wuxuu ka sheekeeyey habeen uu Catherine kiniin ugu daray cabitaankeeda kadibna uu si qasab ah u kufsaday. isla waqtigaas arkeer ayaa meesha yimid si uu naagtiisa u argudo. wuxuu Morgan u soo kaxeeyey xaggii godka laakiin intay jid ku sii jireen ayaa Morgan u dagaalamay taasoo arkeer ku sababtay inuu qof shacab ah jiiro. waxaa kale oo daha laga qaadaya in Morgan uu ahaa qofkii meydka aasay inkastoo arkeer uu ka soo horjeeday. markii uu Morgan isku dayay inuu arkeer wax walba ku eedeeyo ayaa ninkan madax bir loogu dhuftay oo godkan ayaa lagu riday halkaas oo si xun loogu jirtilay. waqti xaadirkan Lauren wuxuu isku daday inay ninkan ku qanciso inay ka xaalmarinayso wax kasta oo qoyskeedu ku sameeyeen. si kastaba ahaatee Morgan xaalmarin ma doonayo oo wuxuu kaliya rabaa in iyaguna ay halkan ku qurmaan si la mid ah sidii uu 30 sannadood ku jiray. waxa kale oo uu sheegay inuusan dhaafi doonin xubnaha kale ee qoyskooda oo uuna laayi doono. halkan markay marayso Catherine ayaa soo toostay oo Morgan u sheegtay inay ahayd inuu iska dhinto intii uu halkan ku xirnaa. tani ninkan waa ay ka caraysiisay oo haweeneydii ayuu dharbaaxo ku dhuftay. markay aragtay waxa uu wado Lauren ayaa xanaaqday oo ninkan ku tilmaamtay qof aan abaal lahayn oo naxariis daran. tani waxay keentay inuu mar kale caroodo oo Lauren oo dhan gidaar ku kala tuuro. dabadeed wuxuu Morgan shaaca ka qaaday inuusan iyadu dili karin maadaama uu yahay aabaheeda dhabta ah. arrintani Lauren waa ay ka yaabisay. isla waqtigaas Catherine waxa u suurtagashay inay qori soo qabsato oo ay ninkan madax ka toogato. filimka ayaa ku dhammaanaya hooyada iyo gabadheeda oo godkii basiin ku shubaya oona dab qabad siiyey iyagoona daawanayay godkii oo gubanaya. magaca filimku waa Inheritance oo soo baxay sanadii 2020ka. subscribe saar kanaalkan oo gambaleel ka furo si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. waxaadna ku mahadsan tahay daawashadaada.